Sidaan la socono xalay waxaa la ciyaaray Champions League waxaa jiray kulamo aad u xiiso badan. Haddii aan kulanka Arsenal iyo Bayern Munich ku horeyno, dee kulanka sidaynu ognahay waa laba kooxood oo Champions League muddo badan kulmay. Taariikh ahaan iyo weliba badis ahaanba waxaa fiican kooxda Bayern Munich. Inkasta oo kooxda Arsenal imika ciyaaraysa iyo kooxda Bayern Munich imika ciyaaraysa ay labada kooxood kubad ahaan aad u kala wanaagsan yihiin oo kooxda Arsenal ay aad u wanaagsan tahay. Laakiin dee markay kulmaan dee waynu ogeyno goolal daraasiina. Marka xalay horta goolashii daraasiinta ahaa nimanka Arsenal kuma dhicin. Weliba fursado fiican ay wax ku dhali karayeen way heleen. Laakiin Arsenal waxaad moodaa weli inay lambar 9 rasmi ah ay u baahan tahay oo kubadda dhalinaya. Sidoo kale nimanka wax ka sugayeen Havertz iyo maxaan ku Martinelli iyo Saka iyo kulligood halkii laga doonayay xalay dee wax may dhigin oo qaab ciyaareedkoodii dee muu fiicnaan si looga bartay. Kulankaas Arsenal haddii ay dib fursadaheeda ka faa'iideysan lahayd way dhalin karaysaa wax. Laakiin fursadihii cid uga faa'iideysan garanin toddobaadkan gudihiisa waxa weeye waa kulanka labaad ay guul dareystaan kii hore Premier League ay ugu tartamasay horyaalka England waa tii ayaantii dhawada ka badasay kooxda Aston Villa ee 2 wax ku soo dirdirtay. Xalayna waxaa laga reebay koobka Champions League. Marka ninkii Arteta oo aad mooyso inuu koox wanaagsan oo kubad fiican ciyaaraysa soo dhistay weli laakiin khibradii iyo waayo aragnimadii ayaa ka maqan. Kooxdan Bayern Munich khibrad bay la ciyaartay gool qurux badan ay runtii ka dhaliyay Kimmich baa ka dhaliyay hidka ka dhaliyay iyaguna fursado way heleen laakiin kama aanay faa'iideysan. Marka kulankaas sidii awalba hore loo yaqaanay waxa laga badiyay kooxda Arsenal waxaana ku soo dhamaaday aggregate-kii 2-3 ay guusha ku raacday kooxda reer Jarman ee Bayern Munich. Xagga position-ka ama kubad haysashada waxay kala ahaayeen 51 ay kooxda Bayern Munich ahayd iyo 49 ay kooxda Arsenal ahayd. Kubadaha goolka ku beegnaa halistaha waxay sameeyeen 3-3. Marka kooxdan iyadu mid bay ka faa'iideysatay sidaasayna ugu gudubtay wareegga xiga. Kulanka kale xiisaha leh waxa uu dhexmaray kooxaha Real Madrid iyo Man City oo ilaa 4 sano u dambeysay Champions League iska hor imanayay. Xalayna meesha waxa weeye waxa la ciyaaray khibrad iyo waayo aragnimo. Haddii aynaan khibrad iyo waayo aragnimo horta aynaan degelin kubadda qaabka si loo kala haystay aynu yar eegno bal. Position-ka iyo kubad haysashada waxa maamulaysa kooxda Man City oo boqolkiiba 70 wax yar ka dhiman yihiin ayay haystay. Halka kooxda Real Madridna ay boqolkiiba 30 haysatay kubadda. Kubadaha halista ee goolka ku beegnaa 9 ayay sameysay kooxda Man City halka kooxda Real Madridna ay sameysay 3 kaliya. Koornayaasha waa meelaha waalida xalay koornayaashu meelaha waalida xalay ka mid ah. Kooxda City waxay heshay 18 koone iyo Real oo heshay hal koone. Real City oo 18 koone heshay wax allaali waxay soo kordhisay ma jirto. Koornayaashu waxa weeye waa halista waa madaxa waxa weeye meelaha khatarta. Laakiin wax allaali waxa uu keentay tababare Mourinho hore loo weydiiyay kubad difaac iyo magaranaysa iyo dib u gal iyo wax ku dhisan bad ciyaarta. Diidna wuxuu yiri war kubadda sa doonto ciyaaro yaa gool ka dhex dhigan ba meesha taal. Marka xalay nimankii City tiiba la ciyaaray. Nimankan waa nimanka koobkan ugu guuleysiga badan leh. Iyagoo aan de waxba haysan oo position laga hayo oo fursad kasta laga hayo ayay haddana 120 daqiiqo nimanka hayay. Markii dambena waxa weeye ayar bay reebeen rikooryaasha way ku reebeen marka City way cabtay. Marka de markasta khibradda way aragnimo wax weyn. Ninkan muxuu ahaa tababaraha ee Carlo Ancelotti ee kooxdan maamulana. Tababaraha kaliya ee Pep Guardiola oo 3 kooxood oo kala duwan haysta ka reebay horyaalka Champions League. 2014 Bayern Munich buu ka reebay isagoo wata. 2022 City buu ka reebay isagoo wata. Sanadkan 2024 Pep Guardiola oo kooxda Man City wata ayuu ka reebay. Marka de waa nin magaranaysa khibradii waayo aragnimo ku ciyaaraya. Kooxaha oo isku dhacay durtaba marka sidaynu ognahay labadan kooxood oo iyagu badankooda kooxaha semi-finalka iyo muxuu ahaa afar dhamaadka koobkan Champions League yimaada ee Real iyo Bayern Munich ayaa madaxa isula jira. Waa kulan adag kulli wax badan baa laga filayaa waana kulanka imika ugu xiisaha badan leh ee Champions League ee haray. Marka bal kulankaasina sidoo ku dhamaado
iyo sida xaaladiisu noqoto waynu arki doonaa. Laakiin xalay labadii kooxood ee Ingiriiska ahaa guryahooda lagu soo celiyay. Marka dee ninkii Arteta waxba isaga uma hadhin baan u malaynayaa meesha waa ku qaribeeno. Laakiin Pep Guardiola weli isagu fursad buu haystaa inuu Premier League sanadkan uu isku qaboojiyo. Laakiin Ingiriiska 7 ciyaarood oo hadhay madaxa la isla wada gelaya wax badan baa ka dhici doona. Halkay ku dambeysana waa arki doonaa.